بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله annagoo maanta halkan u nimidnay arkadii madrasada degmada Geelbalaad sidii loo dhiirigelin lahaa ahaantii oo halkan jayshadaan ku bixinay ayaa iyana markii hawshaas ay noo dhamaatay dadkii Geelbalaad iyo aqoonyahankii iyo maamuladii ay isku yimaadeen baahi kale ayaa soo baxday runtii oo imaamka masjidku noo sheegay ma garanaysaa imaamka masjidku wuxuu noo sheegay baahi jirta oo ah masjidkan imiga aynu wada arkayno ee goobta aan joognay degmada Geelbalaad wuxuu sheegay habeenkii inaanay iftiin aanay lahayn oo way u baahan yihiin solar in lagu shido maadaama magaaladu aanay warsad yaro dabka shidoo leeyahay aanay jirin ee qof walba iskii uu shito qof walba solar intuu gurigiisa dhigto ama meheradu ku shaqaysanayo uu dhigto run ahaantii baahidaas markii aanu halkan kula kulannay ee la isla eegay run ahaantii waxaana la socotay Xaliime Cabdi Obsiye run ahaantii oo iyada tiri hawsha ana kaligay qaadaya bixinaya lacagteedaas waxa isla goobtii runtii ay ku tabarucday markii la qiimeeyay solarka shidi kara masjidkaasi habeenkii gaar ahaan iyo maalintii marka la eedaamayo uu baahan oo daruuriyaadka ay kamid tahay in $500 ay tahay waxaanu halkan aan uga mahad celinaa run ahaantii aniga iyo odayaasha degmada Geelbalaad iyo dhalinyartii aan ururka qodaay injineer Cabdikariim iyo imaamka masjidka oo inala jooga iyo dhalinyar fara badan inaynu halkan uga celino magaranaysaa mahadnaq Xaliime Cabdi Obsiye run ahaantii oo qurbo jooga inaad aad u mahadsan tahay jazaahullahu khayr masjidkaasi maanta aan eedaanka la maqlayn amba habeenkii aan lagu tukan karin haday cadeed uba dhacdo run ahaantii aad baad u mahadsantahay halka ka soo saartay ilaahay wax khayr qaba kugu bedelo waxaanu kugu duceynaynaa ilaahay inuu yana wax khayr kugu bedelo adiga iyo caruurtaada iyo ehelkaaga iyo odaygaagaba ilaahay khayr ha ku siiyo ilaahay jannada firdawsa ha kugu bedelo maalinta la qaawayo la qatay yawm qiyaamah ee qof walba had u baahan yahay insha Allah xawdka nabiga tii ka cabta ahaw wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh